لخديجة بيت من قصب في الجنة خال من نصب. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. dhammaantiin waa idin salaamaya sida aynu la wada soconno waxaynu guda galaynaa tobankii u dambeeyay ee bisha Ramadaan. tobanka u dambeeyay ee bisha Ramadaan waxa lagu qariyay habeenka Laylatul Qadriga. habeenka Laylatul Qadriga waxa uu ka khayr badan yahay kun bilood sida uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku sheegay. haddaba aynu ka faa'iideysan habeenkaas yeynaan hal habeen oo kaliya xoogga saarin. dadka waa maaragtay waa la shaqaynaa dadka dhan waxa habeenka 17 aad la soo wada jeedaa. habeenada kale waa la ihmaaliyaa inta badan, laakiin habeenka 17 ah lama hubo waxa weeye waxa lagu dhex qariyay tobankaas habeen ee u dambeeya. waxaana aad loo filaa habeenada witriga ama habeenada isdheer 23 25 27 habeenadaas ay aad loo filaa. tusaale yar ah soo qaato sidii aynu uga faa'iideysan lahayn ayn maaragtay tusaale soo dhaweynaya. waxaa hortaada yaala 10 sanduuq. sanadiiqdaas waxaa ku qoran 22 22 ilaa 30 laga gaarsiinayo. 10 sanduuq waxaa ku jira mid ka mid ah mujawharaad aad qaali ah. haddaba mujawharaadkaas si aad u heshid waxaad furaysaa sanduuqa 27aad ama ka 25aad mise waxaad furaysaa 22 laga bilaabo ilaa 30. سويدي waxa furaysa dabcan 22 laga bilaabo ilaa 30 midba midka uu ku xigo ayaa furaysa ilaa ka heshid mujawharaadkaas qaaliga ah. haddaba Laylatul Qadriga waa mujawharaadkaas qaaliga ah waa habeen fadligeedu maaragtay aad qaali u yahay oo aad loo laalaabo ilaa kun bilood uu ka khayr badan yahay. haddaba cibaadada aan la imaanaysid isa ku koobnaan hal habeena ee israaci 22 ilaa 30 cibaadadaadu maaragtay mutawaasil ha noqoto si aad u helishid habeenkaas Ilaahay ku xaqriyay habeenadaas u dambeeya ee bisha Ramadaan. insha Allah ta'ala waxa rajeenaya in dhamaanteen aynu ka faa'iideysano. Aisha radhiyallahu anha waxa ay weydiisay Nabiga Kaleey salaatu wasalaam maxaan oranayaa haddii aan la kulmo habeenkaas ama habeenka Laylatul Qadriga. Nabiga Kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri waxa tiraahdaa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ilaahay waa ka cafiga badan marka waxa la doonayaa qofku inuu ducada oo aad ugu celceliyo, istighfaarta inuu badiyo, quraan akhriska inuu badiyo, salaada iyo qiyaamka inuu badiyo, sadaqada iyo khayraadka iyo inuu badiyo, inuu i'tikaaf ku sameeyo masjidka. marka khayraadkaas inuu qofku aad uga faa'iideysto ayaa la doonayaa tobankaas ugu dambaysa si uu Laylatul Qadrigaas u helo. Laylatul Qadrigaas hadaa heshid falillahi alhamdu. habeenada kale khayraad kala timina waa khayraad aad u fara badan bil Ramadaan oo maartay barakeysa alla timi waxa adigu anfacay miisaanka xasanaadkaada wax ku galaya weeye maaha wax ka dhumaya marna. marka aynu dadaalno insha Allah ta'ala Ilaahayna hana waafajiyo habeenkaas Laylatul Qadriga. assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. في الجنة خال من نصب أولى زوجات محمدنا بل خير نساء المطلب لخديجة بيت من قصب في الجنة خال من نصب أولى زوجات محمد.